hadda gaalkacyo ka socda caruur iyo maati iyo dumar baa ku dhimanaya rag waa kuwa qoryaha wata islaynaya waxa isweydiis mudan dumarka iyo caruurta habaarka haysta waxa isweydiis mudan ragayagii Soomaaliyeed cukaashtii waasiyadii malaaqyadii siyaasiyiintii inay 26 sano oo burbur aan soo marnay ina maanta colaad caruur Soomaaliyeed inay guryahooda ka qaxaan oo oon iyo gaajo ugu dhimanayaan geedo hoostood maalin dhawatan TV ka fiirinay hal saacna waan ooynay hal saacna waan xanaaqsanaa mar waan ooynayo waxaan ka ooynayay waxay oo manaha u joogaan sababta colaada haysata yay la dagaalami ma Ingiriis bay la dagaalami ma Talyaani bay la dagaalami waayo cid ay uga soo qaxeen guryahoodii marna waan xanaaqsanaa waxaan u xanaaqsanaa aqoon-yahanada la sheegayo ee professorada ee haddana iska safraya ee wadamo kale u socda dalkoodii iyo dadkoodii oo qaxayo maati ay colaad ku abuureen sababta ay colaada ugu abuureen iyo waxa ay adduunka ay koorarka u qabaan ay suudadka u qabaan ay u dawaafayaan ee diyaaradaha u korayaan ayaan garan waayay hadalkayga waxaan ku soo gabagabeynayaa ummadda Soomaaliyeed ilaahay maslaxaha u keeno waxaan hadalkayga mar labaad haddana ku soo gabagabeynayaa dadka nala yiri mas'uuliyiin bay idinka yihiin ee ilaahay mas'uuliyadda saaray anaga horta Soomaali raggi Soomaaliyeed mas'uul naga ma noqon karaan maanta waanu soo aragnay waan soo marnay 30 sano ku soconaa colaad iyo dhibaataan oo la kulanay adduunka dacaladiisa haddaad hadda gurigan dabadiisa fiirisaan waxa degan beesha caalamka waxa loogu yeero dhulkeeni baa la degan yahay waxa loo degan yahayna lama garanayo dhulka wax cishada markii la waayay dad kale loo soo dirayaa waxaan idin sheegayaa colaadaad isku wadaan iska dhaafe sanadada soo socda wadankan in la wareego taasaad ku wadaan haddaan nahay dumarka Soomaaliyeed marna u dul qaadan mayno 30 sano ayaanu rafaad ku jirnay dhimanay hooyo iyo ilmo ka dhintaan colaada galkacyo ka socota hooyo ayaa wiilkeeda ku waayaysa ilmaheeda ku waayaysa aabe odaygeeda ku waayaysa anagu waanu ka daalatan u fariisan mayno culimadii way joogaan maanta maqraatibaad iiga tihiin waxa aniga iga qaylsiinaya inaad dareemi kartaan maanta haddaad wadanka maslaxa u keentaan oo wanaajisaan anu maanta halkan ma soo istaageen oo inama dheheen madaxweyne u tartamaya sababtay tahay dhaqanka Soomaaliyeed baan ilaalinayaa laakiin maadaama aad ku fashilanteen oo waxba wadankii ka qaban laadihiin danta ayaa igu kaliftay inaan dhaho this time waa waqtiga dumarka hal maro kale waxaan ugu celinayaa mas'uuliyiinta calanka Soomaaliyeed wata ee diyaaradaha kora ee gaalkacyo iyo mataqaana Puntland iyo Galmudug baan la hadlayaa cid kale maaha madaxweynaha horta waqtigiisa wuu fashilmay sababtoo ah isagoo ka hadlay maarteen wali intuu TV soo hor istaago waa maya labada nin ee halka mas'uulka ka ayaan la hadlayaa enough to enough gabar Soomaaliyeed oo dambe asay ma qaadayso waanu ka daalasay salaam calaykum